iftaar menugeyga ugu talgalay martida waxaa ku jiray buskeetigaas sida u sameeyaa idin tusaya. marka ugu horeeyo hilibka buskeetiga waa kana waxaa kusoo darsanaya kabsar caleen iyo toon. waxaa kaloo kusoo darsaday babaay maadaama babayga uu ku jiro shay ama maado hilibka jilic zaid ka dhigayo. waxaa kusoo darsanaya maraq digaagayga adiga daarbin waa iska dhaafi kartaa. cusbi filfil ku bedelo filfisha jag kusoo siistay meel iska soo dhigaya. waxaa kaloo kusoo daray xawaajiga hilibka wax yar 1 hour camal meel iska yaale markaan afurka soo dhaweyn aan qasahay. okay si fiican isku soo walaaqnaa dabka iyo cadaabta naga kori waa kana saliida kusoo shiilaya biyo dhalaya waa iska daboolaya koob oo biyo waa ku daraa maadaama hilib geel yahay laakiin maba u baahna biyo badan sababtoo ah uu soo jilicsamay babaayga iyo toontiya si fiican jilic uga soo dhigtay. hilibka geeskiis markuu biyaha iska dhameysto uu soo shiilmo meesha waxaa ku haystaa baradho ah khafiif u soo jaray saliida ku soo dubaya. waxaa kale ku soo daraya basal iyo barbarooni laba nooc si fiican isugu soo shiilay waxyar cusbo iyo filfilna waa ku soo darsaday hilibkii korka ugu shuwaaya saliidan badan inta ka miiro. ugu dambeyn waa kaas baastada saldaatada lagu cunayay iyo salarkaas aad u macaan badnaa idinkana ila soo tijaabiya. bye.